Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaalaha garbahayga oo kusoo dhawaada youtube channelkayga waa aniga walaashin xafsa youtube aad naga daawaneysaan waa xafsa channel barnaamijkan waxaa idin soo gudbisaa isla aniga waa walaashin xafsayid soo dhawaada meel walba aad joogtaan waxaan allah subxaana watacaala idinka baryaa cimri dheer cibaado suubayno allah idiin siiyo insha allah waxaa idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aniga waan fiicanahay alxamdulilah waxaa inoo soo socday kitaabkeeni imtixaano ahaa ee la magac baxay baro 100 xadiis hase yeeshee intaan u gudagelin darsigeeni maanta ugu horeyn haddii ay tahay marka ugu horeysay aad channelka soo booqatay fadlan subscribe saar haddii aad hore nool joogteen like saar u share garee asxaabtaada oo la wadaag nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeeni 55aad biidnillah bismillaah عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يضع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة أمنا عائشة الله كرال نقضي وحي كورنيسا نبي صلى الله عليه وسلم إنو دهاي كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبي وحو أها لا يدع 4 مت أن ديعين أفر أيو أها نبي قبل الظهر إلا وركعدود كهريسا صلاة الظهر وركعتين قبل الغداة إلا وركع كهريسا صلاة الصبح wuxuu ahaa nabiga mid aan dayacin 4 rakacadood oo ah 2 rakacadood oo ka horeysa salaada duhurka iyo 2 rakacadood oo ka horeysa salaada subax afartaasna wuxuu u doortay waxay tahay acmaasha waa la aqbalaya ayuu yiri nabiga samada way furan tahay waxaan rabaa in acmaasheeda laga aqbalo oo samada laga geeyo salaada subax waxaa lagu sheegay khayru min addunya wama fiiha waxay ka khayr badan tahay 2 rakacadood ee salaada subax adduunka oo dhan iyo wixii dhexdiisa ahaaday saa darteed ayuu u doortay nabiga wuxuuna dhahay waa xilliga ugu wanaagsan ay samada furan tahay acmaashana la aqbalo saa darteeda waxaa idinku boorinayaa salaada subax iyo salaada duhur inay tahay salaadaha ugu khayrka badan samadana ay furan tahay qofka camalkiisa ducadiisa iyo wax walba uu ku duceysto ay samadu loo geenayo allah subxaana watacaala u aqbalayo waa sababta nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu doorto uu jeclaaday uu u dayici waayay saa darteeda waxaa idin rajeynayaa inaad ku dadaali doontiin 2 rakacadood ee ka horeysa salaada subax oo ah khayru min addunya wama fiiha iyo 2 rakacadood ee ka horeysa salaada duhur waxaan rajeynayaa walaalahey qaaliga inaad wax badan ka fahmi doontaan insha allah aad la sii wadaagi doontaan asxaabtiina oo aad u sheergaree doontaan nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxa aad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga haddii aad la jeclaatay naftaada oo wax badan ka faa'iiday la wadaag walaalkaaga muslimka ah si asigana uga faa'iido walaalihiisa kale u sii gaarsiiyo guud ahaan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa daawashada muuqaalka iyaga waad ku mahadsan tahay haddii aad subscribe saartay aad nagu soo biirtay sidoo kale ha ilaawin haddii aad dhamaysatay daawashada muuqaalka inaad like gareyso oo aad la sii wadaagto asxaabtaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh